magacaygu waa Faarax Ismaaciil wey magaalada u jeedaan xilligii hadda iskaashimeeyay ama iskaashiga kuwii ama iskaashiga labadii markaa ka soo qaadan ugu dambeyntii iyo hadda xilliga kan waxyaalaha iyo meelaha ay kala joogto waa wax dee difference weyn u dhexeeyaan in hadda horumar badan samaysay oo ay ku tilaabsatay waa wax cad waxa ka horumarkaas oo ay ka mid tahay wadooyinka oo laamiga hadda la arkay oo isgoysyada hore uma jirin waxaan shiroo kale si hoteeladan waaweyn oo dabaqyada isa saaran waxaan jirin kambaniyadatan yaaciga oo hadda meel walba qabsay oo ama hadii isgaarsiintan ama hadii kuli kambaniyada ka dhismayaasha waddanka oo badeecadaha kala gedgedisan keena kuwa gaadiidka waxa oo dhan waa horumar dalka maanta halkaas ay maraysaa alxamdulillahi rabbil caalamiin wana wanaagsan tahay magaalada waa u jeedaa inta la egtay baaxadeedii waa horumar ka darsan waatan way fidaa hadda magaalada waxay aadda dhankaas iyo dooxadaa weyn oo xaggaas oo barda dheerayaal waxay aadda dhanka kore oo waqooyigan ee magaranaysaa tukashada oo laamiga u baxo waxay aadda dhankan kaleeto oo bacaadka caska jeexdin iyo ilaa godad bay hadda u socotaa inay aadaba waa horumar marka ballaaran horumarkaas alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa keenay meesha ugu weyn waa mucaawanimada oo dhismayaashatan iyo kambaniyadahan iyo ganacsigan iyo waxbarashada intaba waxa kaga qaadaya waa tiirka koowaad waa nabad waayo haddaan nabad helin waxba ma jiri karaa caafimaadkaa dhumaya noloshii kaa dhumaysa adeegyada asaasiga kaa dhumaya qof kasta oo aadamiga inuu ku fakera horta nabad inuu horta nabadda inuu xajiyo dadka dhan lagu soo dhaweeyo magaaladan magaalada dadka oo dhan lagu soo dhaweeyo Soomaali haato ama ajnabi soo qaxay baa ahaatee xilna wax lagu weeyay dadka Soomaalidana hadda waa waddankooda deegaan ka soo barkeen isla waddankooda bay yimaadeen waa khasab inay mudane la soo dhaweeyo waa la soo dhaweeyo waxaan aaminsanahay meel kasta dad meesha isku yimaado baa horumar iyo laga gaari kara horumar ama ganacsi haato ama waxbarasho haato ama caafimaad haato ama aqoon kala gedgedisan haato waxa magaalada ay ku kacdaa oo ku tanaadaa ama ku horbadhaa dadka isu yimaada meelaha kala gedgedisan oo aqoonaha kala gedgedisan wata taa dadku way ogaadaan dadkana waxaan kula talin lahaa nabadda iyo ammaanka iyo xasiloonida inay ka qayb qaataan